maanta oo bishu August ay tahay 25 aan joogno cusbitaalka Naasa Hablood waxaynu maanta bilownay mashruuc xagga caafimaadka indhaha eegitaankooda oo inala joogaan dhakhaatiirta mutadawiciinta cusbitaalka Naasa Hablood maanta marka insha Allah taala waxaynu aanu eegnay in ka badan 150 qof ilaa hadda wadna mashruucuna waxa weeyaan mashruuc tabaruca ummadda loo sameeyo bilaash qalimo bilaash oo xagga maxaan ku raay indhaha ku saabsan isla markaana waxa weeyaan lagu wixii talabixina lagu siinayo wixii maxaan ku raay dawo u baahan loo sameeyo ilaa imika waxa weeyaan si fiican baan hawsha wadnaa aad iyo aad buu mahadsan tiimka dhakhaatiirta mutadawiciinta maxaan ku rahday iskood isu xilqaamay dar Ilaahay gacantooda u geystay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryaynaa in uu miisaanka xasanaadka uu ugu daro dadka ay u shaqeeyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caafimaad gacantooda ka siiyo iyo dawadoodaba waxa weeyaan bulshada ku dhaqan Soomaaliland gaar ahaan caasimada Hargeysa runtii waxa weeyaan waa mid ka mid ah fursadaha soo maray ay maanta ka mid tahay oo uu suuro geliyay cusbitaalka Naasa Hablood oo cusbitaal ku yaala bariga magaalada Hargeysa oo dawliga oo wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhistay isla markaana u adeega xanuunada maxaan ku rahday guud oo dhan u adeega oo qaybta TB-da leh oo maxaan ku raay qaybta maxaan ku raay dhalmada iyo hooyada leh maantana wax weey mashruucan indhaha ayaynu insha Allah taala aynu dar Ilaahay u qabanaynaa ilaa imka loo si fiican u socota waxaan rabnaa insha Allah taala inaan nolosha sida dadku ay u socdaan marka faro badan insha Allah rajaynayna soo noqoto dhakhaatiir kala duwan oo timaado insha Allah rajaynayna mashruucan maanta aynu ka qabanay cusbitaalka dawliga ah ee Naasa Hablood waa qayb kamid ah qaybta la dagaalanka indhala'aanta ama ka hortagga indhala'aanta ee qaranka oo aanu ka sameeynay degmooyin iyo cusbitaallo kala duwan oo anagoo iskay isku abaabulay inaanu dadkayaga aan u sameeyno qalliino bilaasha kuwaas oo ay kamid yihiin ka qaadista xuubka caadka ka xiritaanka biyaha indhaha ku furma daweynta iyo la socodka dadka macaanka qaba ee indhaha uu ka saameeyay macaanku xiritaanka ama furitaanka tuubooyinka ilmada ee xidhma iyo qalooca toosinta indhaha ee qaloocsama kuwaas oo inta aan ugu sameeynayno gacanteeda free aan ugu sameeynayno insha Allah taala si dadkeena uga faa'iideystaan insha Allah taala meelo badanna waan ka soo sameeynay ay kamid yihiin degmooyinka laga soo bilaabo baran ilaa iyo Wajaale hawsha oo lagu hogaaminayo dhakhtarkeena weyn ee Dr. Shine ilaahay khayr badan ha siiyo looguna shaqeynayo ummadda dadka baahida indhaha qabta marka halkan waxaanu nimay anagoo dhakhaatiir badan ah oo foundation sameeyay ahlayna Ocular Foundation marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa dadkaan u shaqeynayno inuu ilaahay caafimaad sariicana siiyo aragoodii ay tabayeen ay halkan ka helaan insha Allah taala degmooyinka iyo goobaha kalena saas oo kale aan ku marayna insha Allah taala meelo badan oo noo balansanay imika way jiraan khayr badan baan rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan wanaagsan walaal dhakhtarkan saakan imiyo ilshan buu caadi ka saarnaa si dadnimo iyo adaab iyo usluub leh bal lagu shaqeeyo bilaasho ilaahay tirtiya ma sha Allah anaguna u ducaynaa nimanka ilaahay gacmahooda u barakeeyo anagana ilaahay caafimaad naga siiyo tawakkal Allah marka alxamdulillah rabbil caalamiin shalay maantana ilbaa xub layga jeexay alxamdulillah si wanaagsan baa lagu shaqeeyay